أحمد عينان waxaan ahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorame waxaan doonayaa maanta shirka jaraa'idkan kaga hadlo laba arrimood oo muhiim ah oo ay Boorame ka bilaabeen niman aan u daneynayn dhaqaalaha degmada Boorame iyo nabadgelyada degmada Boorame waa qodobka koowaad waxa weeye arrinta jaadka anagu ma aanan codeyn xaqiiqahan oo far uma aanan taagin oo xeerka ma aanan asixin baag suuq yaaleen cashuur laga qaado iyadoo tooro laga qaado annaga sheekadeedu waxay ahayd tii hore ee fashilantay wasiirada maaliyadda ogeyd ee la diiday wax nooga dambaysaa ma jirto taasaan saxiixnaa anagu tan la leeyahay waxa weeyaan inta la kaxaysto dad waa anu waxa u maleynayaaba in mashruuc lagu soo qaatay sida loo qalqaliyo nabadgelyada degmada Boorame waayo jaadku inta qoys oo ku nool waa la garanayaa dhaqaalaha degmadu uu soo geliyo waa la garanayaa iyaga shakhsiyaadkooda iyo gaangisnimadooda waa la garanayaa waa dad aan cashuur ku baaqan ninka maanta oo xaaladdu halka marayso jaadkii farafareeyay ee la waxaan ka jajabinayaa miisaskiyo degmada anaga leh been buu idin sheegayaa waa beenaale kuwa la socdaana waa beenaalayaal weeyaan ma aanan codayn ma aanan sharciyeyn ma aanan saxiixin waxaan ka weerinayaa hadday isku dayaan inay mashruuc ku soo qaataan khalkhal degmada Boorame laga abuuro nabadgelyada oo jaadka igu soo gabadaan beenaalayaal weeyaan ma samayn karaan mana dhacayso mana ogolin anagu waxa inta nabadgelyada khusaysa jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ogeysiinaynaa in systemka ama raggaasi mashruuca ku soo qaatay nabadgelyadii bulshadeeda degmadii nabadda hooyga nabadda ahayd Boorame waa hooyga lagu yaqaano hormoodka u ah jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyadeeda in la marwan tahay maanta ninka raba inuu foodo ka abuuro foodo aan weligeed dhicin oo uu isku magacaabayo xildhibaanada ii sharciyey dee waa foo weeyaan waxaas anagu maanaan maqal sharciga anagu maanaan asixin meeshu ka keenay siga u taallaa wallaahi waxaan arkayaa anigu in waxa uu samaynayo dhan iyo cidda la samaynasaaba ay isaga ku noqon doonto barta balay ka raacayso taasi waa tii nabadgelyada ay iyagu imka abuurayaan talabaad waxa weeyaan tii dhaqaale burbur ugu xoog weynid Boorame ka bilaabay bajaajtu si ninka soo ogsoy Boorame degan waa gaadiidka dadweynaha qaada ee yaryar ee magaalada isku socodkiisa faa'iido weyn ka dhaliyay bajaajta Boorame markayna iman waa la garanay Boorame way kala xirtay dhaqaale ma lahayn way magaalayso caasimadda labaad ta koowaad bay ku socotaa bajaajtii lacagtii urursadeen inta laga qaatay oo la isticmaalay ilaa system wax walba loo isticmaalay ayaa la yiri AB baan ka dhiganaa war bajaaj daboon tagaysa maxay AB ka garanaysaa taqoolujee tagaysa la leeyahay waxa lagu qorayaa AB ma haystaa labada maalintu la sanayo wuxuu labada cisho uma soo saaras bajaajtu waxay soo saartaa maalin kasta 350 oo Soomaaliland waa meel ila dhaqaale cajiib weey dadweynuhu way ku baraareen waxa loo sameeyo bajaajtu sideedaba tahay waa gaari yar in laga maarmo istaan la istaago ma garanaysaa gaarigiyo ayru socda waxaan sheegay gaarigiyo time ku geenay xaafadii kale iyadoo hal qof haday soo carartaa dadku waxa ku nool baan kuli ka iibinaya 350 qof qoys ayaa bariis ka soo saarta maalin kasta 350 qof qoys oo kala ku dul nooloo darawaliinta bajaajtooda kii jaadka cunayay kii bariiska iibsanayay kii shidaalka iibsanayay noloshii oo dhan baa ku wada xidhan maanta Boorame bajaajtaasi waxay u keentay horumar cajaa'ib ah cidda aqliga xun la timid ee ku talisay in bajaajtii ay 50 bajaaj shaqeeyaan maalintii oo la ilaa sixmad bay keentay baashi tagaasida dadku wataan ee qabanaya meel dhow tagaasida dadweynuhu wato waa arrintii ugu xumayd ee nabadgelyada iyo dhaqaalihii degmadaba weerar ku soo qaadeen waxaan u maleynayaa anigu waxaan ka waaweynayay waa mashaariic meel kale ka socday inay ogaadaan dadka naga sarreeya jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhaqaalaha iyo nabadgelyada way khusayso inay hoos u eegaan mashaariicdan Boorame lagu soo qaatay xaaladda maanta ee la iska eedeynayo telefishinadii iyo wariyayaashii la iska xidhayo ee jaadkii loo soo jeestay ee bajaajkii loo soo jeestay tagaasida ayna wadana maalin dhow la joojin halkii anagu taamaana nugen xitaa bajaajta meel alla meel ku shireen
meel alla meeluu ka soo saaray meel alla cid wadataa iminkun baan maqlanaa $18,000 baa naga maqan oo guddidiiba jaas naga qaatay sharci ma aha bay leeyihiin xitaa guddi waad waraysan doontaa iyaga waraysta marka anigu waxaan halkayga kaga baxayaa arrimahaasi istaba socda ee mashaariicda boormadeedii lagu soo qaatay il dheer in loo yeesho aniguna yeeli mayno aniguna waan diidnay yeeli mayno mana dhacayaan waxaas وسيدا walaalkii horta uu sheegay weeyaan xasan degmadan maanta waxay u baahan tahay hilbay u baahan tahay waad aragteeno in degmadii ay boorama ay waxbaba ay kala socon laayihiin waa jaadlayaashii baa loo soo jeestay waddanku waxa uu ku nool yahay waa la og yahay waa miisaaniyadda dhan ee dalka lagu sameeyo waa jaadka la casho masaakiintii baa la leeyahay lacag aan jirin oo meel alliya meel ay galayso aanu garanin baa laga rabaa xoog in laga qaado war waxaan leenahay waxaasi waa sharci dar hadduu sharcigu uu shaqayn waayo waa gacan baa shaqayn dowladdii hoose sistamkeeda uu baaba'ay ninkan meesha joogay jaahilka ee aan waxba fahansanayn ee wixii la soo faro uun dadka ula imanaya annagu haddaanu nahay waa xildhibaanadii waa la soo doortay ee degmada boorama waxaanu sheegaynaa wixii cadaalad ah cirka ama dhulka ha galan leynay waxaas waxba kama jiraan war bajaajalayaal baa jooga lacag baa laga ururiyey lacagtii meel alliya meel ay martaanu laanahay ilaa imika waa kuwa inamadii la doortay bajaajalayaashii lacagtii inta laga ururiyey meel alliya meel la marin leh afartan tuugee beenta adiga waa kuu sheegaysa waxaan leenahay war waxaasi wax naga soconaya maaha degmadana waa loo helin waxaan leeyahay war sharciyaddu ha shaqaysa haddii sharciyaddu ay shaqayn weydo meel kalaa la mari maalin kasta waxaanu aragnaa degmada boorama waa ninkaa isku sheegaya waa guddoomiyaa isku sheegay maalin kasta meeshuu ka maqan yahay ma yimaado xafiis cid allii cid u kala saaraya أنا هرت ماشي كم هاي وأنا كمان تدقمة بورا موي بابا ورحلة سوق قارن لنا هذا سيدا كوسي سعتنا أنا واحد بلنا قاعدنا إن أنا سك على أنا جوه هيك أنت واحد كلام دون كوسي دريا معلومة واحد معركنا إن مجال دي ده كان شغلياش واحد يقول يا والله حق ويقوليهن ودبا ميلها كيل هذا وحبا ما أقوله وجادلياش واحد يقول يوم حلاقة لكن السيستم كان الله مرة هي السيستم أنشر وشرعي كانوا متخصصين روح عن لا يهي دب شرعية حلون ده لون نقوم ويانا لأن ونك استبدأ مشوا ضمك بالعد وعشور تنبتشيل ميس مجالات البر ومحطة اللاقة واحد مشاريع إلا ما تروحوا فرديا هل سنة يبربوا فرديا مد مشاريع ودقمة على قوة متر وهي العقد بالعادة كمر كم عندك اللي هذا العقد كان اللي يقوله وحي مشاريع إن العقد دب محو دلوق عليه دوينه وح عنو مشاريعنا مهين والدقمة ده وحلينا والواحد قبتين إيش ينات قبتين بان الله wax mashaariic anu meesha ka arkay ma jirto maanta oo hormar la taabanayo wali wax qabad anagu ma hayna leen wassalaamu calaykum waraxmatullah waa ku taasay doorka xildhibaanada iyo idinkuba inaad wax sheegataan ta ugu muhiimsan meesha la waxay xildhibaanada xaq bay ku hadleen furintu waxay furisaa maayirka iyo maayirku wuxuu furiyaa siyaasadda kala u dejiyo taasoo meesha ka cadina waxa weeyaan siyaasadii كل دجيبة ماشي كبحر مركا واني بمشي كبير ماشي نوع هو بعنتها عقون يد شرعيات إن لقوا فريسيا باش عشور تضاد كان للي عشور بيديدين وهو قوليه ما نقول له قصبا كردعو كانت ربع مالها على دقي قصة عشور تجات فتوى إلا فهموه كم كان يحقوه كيمي لعيت كم حاجة كتير وعشورتي جاد عشورتي جاد والله يقاضي هذا أنا ولا مرلوات ما كقاضية وشرع الدر وحلا هذا حق الحشيش باجرة مرك مجال هذا السوق
waxaan arkayaa arintii markii wasiirka maaliyaddu yimi sifa sharci waafaqsan baa loo fadhiisiyay baashi wasiirkaana dejiyay wayna digtay xaaladda way noqon wasiirku noqon arintii wasiirka uu dejiyay haddana gudaha ka bilaabo waa fawdo labaad waa nabadgelyo darro waxa la qabanay waa sharciyada ku fadhiyo goluhu wuxuu wax degmada lagu fulnay wax siyaasadda golaha ka soo fushay waa inay ahaato miisaaniyadda golaha waafaqsan sharciyada golaha waafaqsan ima kalfadhi baa maalin la soo qaaday waa la yaabay kalfadhigu muxuu ahaa waa la iloobayba kalfadhiga wax lagu ansixiyaa oo wax la isku weydiiyo wixii khaldan wixii gudi joogtay wax warmayso golaha waxba warmay marka kulli aanu xildhibaanada fikirka waa fikir saliima ay sheegeen ayaan u arkaanagu dad baa maalin walba dawladda hoose halkii ay dadka adeeg u fulin lahayd waxa noqotay goob cabasho ima bashaajleedii baa cabanayso oo in la cuno qabateeyay shalay jaadkii baa cabanayay dibiri waxa xaafadaha caban doonaan u malaynayaa kulli arrinta waxaan isleeyahay sharciyaduna hal waafajiyo waana ku maasantii runtii waxaad tihiin xildhibaanadii golaha deegaanka waxaanad sheegaysaan in sharciyadii lagu tuntay idinku maxaa tallaabaad uga qaadi weydeen si sharciyadii golaha deegaanka iyo xeer hoosaadkiinii iyo guud ahaanba degmada ay u badbaado maxaad sharciyadii aad idinku maayirkaad ugu tilmaami weydano sharciyadda ku soo noqaad oo dhan salayba horta qofkii dee wax qaadan karaya iyo wax loo tilmaamay tilmaanta laftigeedu wax ku noqonaysa dagaal in la dagaalamo buu haystaa haddii wax wareegsan u tilmaantay in jarka ridiisu buu haystaa mar kasta oo tilmaanta waa maroo jarka soo dhaco marka inaad u aamusto weyda ilaa ay indhaha bilaadkooda qabanayaan xukuumaddu soo jeesaysa degmada xisbi xataa dad soo qaaday ma garanay xisbiga kulmiye iyo dad soo qaaday ma garanay uu kula yaabaya aan maxaa xisbiga galay buu kulay siyaasaddiisa iyo bolosigiisa meel ku jeeysan yahay lama garanayo waa arrin aynu ka yaabanahay imika sala calee marka arrintaas in dadka lagu soo celceliyo maahe dadka ka cadhaysiinina wuxuun baan doonayaa inaad wixii xaqiiqada aragtaan inaad sheegtaan hadduu ilaahay dhaahdo aadna waa umahadsantihiin